بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashin aamin aleyka oo fashiyaal oo idin salaamay silsilaan kadib halkaan fadhiya waad arkaysaan caawa waa ii habeenimo shaqaan ka imi aad baan u daalanahay run ahaantii waxay soo geliyey xilligan iyo mugdiganan fadhiyo xaafad laga hurdaan ka hadlaya murugada aan ka arkay internetka oo habeen hore dhacday hooyada Soomaaliyeed ee gacanteeda Ilaahay ku sababay ilmaheeda yar inay disho ilmo yaroo 4 bilood jira oo muxuu ahaa iska umul ay tahay ayay gowracday hooyadaasi hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda dishay kolley Soomaali uma fiirsadaan waalidka hooyada Soomaaliyeed markay umusha tahay haddaynan ogsoonayn waxaa jira xanuun ku dhaca xanuunkaas oo waalida aan waxba dhaamin ayaa hooyada inta badan ku dhaca markay umul tahay haddaan laga daaweynin ama loo naxariisan ama aan laga warhaynina hooyadaas wax badan bay ku fikri kartaa inay owlaadeeda disho sababta keentayna oo aan warka ka dhageystay inuu ninkaba sabab u yahay ninkii u naxariisan lahaa ee loo baahnaa inuu u naxariisto hooyadaasi inuu isaga number 1 ka yahay ka dhibaateeyey hooyada caloolxumada meesha taale waxa weeyaan hooyo isku wareersan oo umul ku jirta oo naxariis kaaga baahan inaad sii silciso sii rafaadiso ilaa heer ay ka gaadho ilmaheeda yar inay gowracdo run ahaantii waali baa jirta qofka dumarka markaasoo kala haysata waxa ay samaynaysa inay ogeyn maanta awlaad yaryar oo kale ay muxuu ahaa hooyadaasi haysataa oo muxuu ahaa ayeeyadood haysay waa ninkii labaad weeye ninka markaa ma garanayo xaaladeeda kale iyo nolosheeda kale waxba kama aqaan laakiin warka sida lagu sheegayo waa ilmahan waa aabba kale aabbihii labaad weeye ninka saa u dhibaateynaya hooyada ragga Soomaaliyeed waxay keeneen inay dumarka Soomaaliyeed sida muxuu ahaa siday rabaan ay ka yeelaan naxariis darrada ay kula dhaqmayaan runtii aad baan ugu murugeysnahay hooyadaasi maskaxdeeda ma ay joogin sida loo hubo oo maskax joogta ma ahayn oo qof maskaxdeeda ay buuxdo ma ahayn haddii maskaxdeeda buuxdo ilmaheeda yarta ilmaha yar ee 4 bilood jira ma ay gowracdeen marka waxa sababaya waa ragga Soomaaliyeed intooda badan naxariista ku yar hooyo umul ah oo rafaadsan oo PPD ku dhaco oo xanuunkaasi waa xanuun inta badan haddaad internetka ka baartaan ama meel kasta ka baartaan ama aad muxuu ahaa dhaqaatiirta soo weydiisaan waa temporary muxuu ahaa mental disorder oo hooyada ku dhaco waalida maskaxda ah wuxuu kaga baaba'aa wiigag buu kaga baaba'aa marmarka qaar 6 bilood buu qaataa marmar buu sanad qaataa haddii aan la daaweynin xanuunkaas muxuu ahaa hooyada ku dhaca haddii iyadiion laga daaweynin haddana buuq lagu sii furo run ahaantii waxa ay samaynaysa war uma hayso marka hooyada Soomaaliyeed kule xanuunkaas hadee ku dhacay ninkii naxariista looga baahnaa inuu u sameeyana uma u samaynin oo de kama u nixin waayo 2 caruur hore haysatay hooyadeed buu dhiibatay noloshii waxa la yiri muxuu ahaa halka ninkaaga ilmahaaga yar umusha ku taag ku hayso isagina dhibaatadaas uu geystay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii warka la sheegayo uu run yahayna saqiir weeye ilmaha yar 4 bilooda rabbi subxaanahu wa ta'aala wuu naxariisanaya insha Allah hooyadaasna Ilaahay ha caafiyo qalbigeedana ha u adkeeyo dumarka Soomaaliyeed waa lagu ciyaaray ragga Soomaaliyeed intooda badan naxariistii baa ka yaraatay nin kastaaba wuxuu gabadha u guursanayaa inuu ku ciyaaro oo maaragtay sidoo doono ka yeelo waxa warka la sheegay inuu ilmaha maaragtay yiri ma dhalin taasina waxyaabaha keeni karto waan fahmi karnaa waa muxuu ahaa waxa la yiraahdo qodbasirada dumar oo iska ilaaliya rag ba inta idila heshiiyaan uur idin yeelaya kadibna dhahaya ilmihii maanan dhalin hooyadaasi aad bay isugu buuqday waxyaabahan uu dhibaatada u geystay ilmaheedii yaraa ay maanta ku seegta labada kale noolna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ba og inay de maaragtay ay haysan karto rabbi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaadaas iyo laakiin dumarka Soomaaliyeed oo ragga maanta jira waxay u soo kaba gashadeen inay naag walba oo ka soo horbaxda naagtooda ay ka dhigaan muddo yar oo kooban waxaan maqli jiray carabta Sacuudiyiinta markay dhoofaan waxay galaan baan maqli jiray sawaaju mudca maxaa la yiraahdaa sawaaj xun oo marba intay muxuu ahaa meel aadan ay gabadha mehersadaan inta yar ay joogaan kadibna ay hadhow maaragtay ay dhaqaajiyaan dumarka inta badan hadda saa lagula dhaqmayo naxariis la idima soo wado qodbasirada iyo dhibaatada la idinku sameynayana tan oo kale dhashaa in ilmahaagiyo xalaala la inkiro
oo la yiraahdo ma dhalin oo lagugu silciyo kadibna waxaad samaynaysaa aadan ogeyn dumarka Soomaaliyeed oo gacmaha isqabsada kana soo horjeesta arrintaas oo kale rag badan baa idin soo kaba gashaday rag badan baa mustaqbal idinka rabin xaasinimo ayay muxuu ahaa idinku ciyaarayaan ragga Soomaaliyeed nin waliba muxuu ahaa wuxuu rabaa intuu ku mehersado suu doono kaa yeelo iska ilaaliya intaad iska ilaalin kartaan qudbasiraha iska ilaaliya ninka aad kula heshiinaysaan intaad qarisaan kadib aad uur u yeelanaysaan uurkaasi ogow siduu doonuu kaa yeelaya waxaad qariso waa ku qarsadaan iska ilaaliya arrintaas oo kale ta maanta dhacday ayay dhalisay saan anuu maaragtay u malaynayo waana wax kale maaha waayo ninkan wuu qabay gabadha waana lagu ogaa laakiin saas ula dhaqmay iyadiina xanaaqii iyo wareerkii iyo umushii iyo buuqii iyo bulshadii oo ay ka fakaraysa maxay ku dhihi doonaan ayaa isugu darsoomaysa qofta maskaxdeeda okay ma noqonaysa marka ragga Soomaaliyeed wallahi daalka iga muuqda iyo murugada iga muuqata waad aragtaan indhahayga waad ka dareemaysaan run ahaantii waqti dambe ii tahay laakiin aad baan uga xumaaday ilmo yaro 4 bilood oo mindi lagu gowracayo la iska dilay aad baan uga maaragtay uga naxay wax laga naxa weeye ilmaha yarka kulli waa saqiir aakhiro laakiin kuwa kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala dee wuxuu ku badbaadiyey ayeedood bay la joogeen kolley hadday la joogaan asxaan umay gasheen iyagana way raacin lahayd daaxaan maqlaynay hooyo ama aabbo ilmahooda wada dila waddamadan gaalada aan nimidna arrimahaas oo kale waan ka keennay oo dee wax badan baa laga dhaxlay waxyaabahan xanuunkan iyo isku buuqan dalkeena hooye ugu yaalay inta badan qofku kuma fikri jirin inuu qof iska dilo oo dhiig bini aadmo galo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiisa qur-aankiisa ku yiri naftaadana ha dilin awlaadaadana ha dilin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyo laa taqtaluu anfusakum walaa awlaadakum baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku yiri waa laga yaabaa inaan tajwiidka ama qur-aanka aan khaldayo ilaahay hayga cafiyo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri naftiina iyo awlaadiinaba ha dilina marka maadaama saa ay tahay inta badan qurbaha markaa nimi waxyaabo badan baan ka dhaxalnay wareer badan ano awalba ooyaya waliigu istaagtay baa ka dhacday oo de buuq badan baa ka dhashay dumarkiina si gaara loogu sii ciyaaray awlaadoodii si gaara loogu sii ciyaaray si gaara loo sii muxuu ahaa dayacay ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmahaas yarkaa saqiir aakhir weye jannada ha geeyo faamilkaas iyo qoyskaasna waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa inuu samar iyo iimaan siiyo hooyadaasna caafimaad inuu ilaahay siiyo awlaadeeda kale u caafiyo ninkii sidaa iyo waxaa ku sababayna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka qabto oo xaqa uu tusan ilaahay uga baryaya ragga Soomaaliyeed oo dumarka aad dhibaataynaysaan iska daayisiiba dumarka markay umul tahay kaba sii daran umul markay tahay xanuunka wareerka PPD-daasa ku dhacda aad iyo aad bay gabadha u wareersan tahay uma baahna buuq dalkeena hooyo waa umusha si fiican baa looga saari jiray gabadha waa umul baa la dhihi jiray muddo dhan baa loo naxariisan jiray bil dhan 40 cisho intay ku jirto dhan waa loo naxariisan jiray dadkii waddanka ku dhalay aad bay u nasiib badnaayeen laakiin dadka qurbaha ku dhalay dhibaatooyin badan bay la kulmeen mana ay helaan naxariistaas marka aday naxariis kaa dhiganaysa haddaad naxaaskaaga la joogtid ha ku ciyaareen kadaa silacaya saxariirta aad ku samaynaysid ilaahay subxaana wa tacaala calaa kulli xaal waxaan ilaah uga baryaa saqiirkaas waa ilmo yar ilaahay inuu jannada geeyo qoyskaasna ilaahay subxaana wa tacaala garabkooda galo oo dhibka ka saara ilaah uga barya laakiin Soomaaliyey xaaladda meel xun bay maraysaa ragga Soomaaliyeedna muxuu ahaa meel xun bay marsiinayaan xaaladda dumarow idinkana laydima naxayo qudbasiro hadday noqoto hadday si kale noqoto marnaba ha ka yeelinanin yacni si kale waxaan ka wadaa waxaa jira xitaa dad maaragtay in iyagoo isqaba iskala sheega oo kala maqan oo marba ilmihii ka dhiga inuu saaxiib ka dhalay oo kale sida caydha lagu qaato taasi kale waa xaaraan kale weeyaan marka ninka ha ka yeelin gabaray adiga isqiimay haddaad adigu isqiimayn qofna kuma qiimaynayo raggu waa qiyaano soconaya allah kama baqayaan ilaahay subxaana wa tacaala kama baqayaan qiyaanadana caadi bay ugu soo dharxidheen haddeer wax allaalam tii allaale ka soo horbaxda toodii inay noqoto ayay ugu talagaleen gabdhihii yareeraa bay ku ciyaarayaan dumarkii waaweynaa bay ku ciyaarayaan mid dhexay ku ciyaarayaan mid waayeelay ku ciyaarayaan mid muxuu ahaa qaangaartay ku ciyaarayaan waa idinka arkaya waxay dumar ku samaynayaan uma naxayaan ragga Soomaaliyeed dumarka ragga Soomaaliyeed oo dhan ma dhahayo laakiin 70% ragga Soomaaliyeed arxan laawayaal bay noqdeen aad baan uga xumay maanta wuxuu gabadha Soomaaliyeed u geystay hooyada Soomaaliyeed awlaadeedii kalena uu muxuu ahaa ku sababay
inay muxuu haddii la doono laga xiri karo ilmaheeda yarna ay maanta gacanteeda ku disho sababtiisa ayay leedahay inta badan isilaaliya dad muslim nahay qofna ha dilina naftiinana ha dilina awlaadiinana ha dilina dhiig bini aadanna ha gelina kolley waxa waali unbaan de u xisaabinayaa umulnimadaan u xisaabinaya 4 bilood waa umul xanuunkanan sheegayana muxuu ahaa kama ba'o umusha ilaa marmarka qaar buu haddaan laga daweyn 6 bilood sanad ku qaataa muddo ku qaataa marka runtii aad iyo aad baan uga xumahay rabbi ha u naxariisto samri iimaanna ha siiyo waalidka iyo muxuu ahaa qoyskaas uu ilmaha yar ka dhintay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu